magaalada Hargeysa waxa kulan uu ku dhexmaray maanta xubnaha Komishanka doorashooyinka ee Somaliland iyo Garabada Haweenka ee Sadexda Xisbi siyaasadeed ee Somaliland. Kulankaasi ayaa lagaga wada hadlayay sidii loo xoojin lahaa nabadda loona ilaalin lahaa anshaxa inta uu socdo ololaha doorashada madaxtooyada. Waxaana kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha Komishanka doorashooyinka Somaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame iyo kaltuun Sheekh Xasan oo kamid ah xubnaha Komishanka doorashooyinka. idinka waxaan idinku yeedhay markaa hooyooyinkii baa tiin idinka ka naxaya caruurtii bal inaad wax nala qabataan raandkii hore waad ogeydeen oo xataa waa la isku dhacay calamaa la gubayaa ciyaalkii midiye iyo tooriyay wataan dadkii la iska hor keenaa waa qayr macquul kursigan ilaahay baa qoray nin buu u qoray kaasaa ku fadhiisanaya kaa ku fadhiistay inaynu ku hanayno oon ku hambaliyayno weeyaan ku doonaa noqdo saddexdooda laakiin halkay marayso xabaalii baa qoyan iyo xabar baa la tegayaa dee hadal waxaynu qaadan karna maaha dusheeni in lagu gorgortamo ma lama qaadan karo haddaad u fiirsataan gudoomiyeyaasha saddexda musharax mid kasta markuu hadlayo anshaxu ka hadlaa in la ilaaliyo ninna raalli kama aha in isaga sababtiisa loo dhinto ama loo dhaawacmo ama ay wax ka yimaadaan iyagoo iyagiiba aanay rabin sababta loo sameeynaya maxay tahay marka maxaa adiga ku waalay maxaa gaari kaalulaya habeen iyo maalin aad u xiiqsan tahay cid baa lagu leeyahay codkaaga si sharaf loo dhiibo ololuhu ma aha qayliye iyo islaaye iyo isku hor yimaada ololuhu waxa weeyaan barnaamijka xisbigaasi wata ku taageer waxa iyaguna geestooda halkaasi hadal ka jeediyay xubnaha Garabada Haweenka ee ka socday saddexda xisbi siyaasadeed. awlaadeena hooyo waliba ubad bay dhashay ma doonaysa ilmaheeda inay dhibaato gaadho mana rabto inuu wax geysto ku geystana isaga loo imanaya ta loo geystana iyada ooyisa marka mar hadaynu nahay hooyooyinka codkeenu waa sidii lagu yaqaanay sharafta iyo karaamada waanu dadaalaynaa waanu jecel lahay dalka iyagu sida uu maanta noo yeeyay si ka wanaagsan inuu ahaado haweenahan waanu jecel lahay waayo cid nooga nugul baan jirinba hadhowta anagunba ilka ku qaadanayna caruurta idinku meelaha saacad cararaysaan marka hooyo waliba way jeceshay ilmaheeda inay kantaroosho inay ka adkaato laakiin dhalinyaradii inteedii badnayd way yaacaysaa hooyadii oo ogeyn aabihii oo ogeyn dhalinyarada waxaan ku taakiidinaynaa musharaxa aad taageersantahay u samee sharaftiisana ilaali sharafta reerkiina ilaali sharafta wadanka Somalilandna ilaali taasoo ah inaad ku campaign garayso sidaad qof kale u soo jiidan lahayd Mukhtar Ismaaciil Ali telefishinka Universal Hargeysa.